ماذا استمعنا لك أرسلت التوى أليدا أرسلت التوى وارين مرغي urkutaalada leh 28kii bishii December sanadkii hore waxaa qarax ismidaamin ah oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee Muqdisho qaraxaasi oo galaaftay nolosha boqolaal Soomaali ah halka kuwa kalena dhibaatadii qaraxaasi ka soo gaartay ay wili la daaladhacayaan subaxnimo Sabti ah saacaduna ay ahayd 7:00 subaxnimo ayuu dhibane Axmed Cumar Yuusuf ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala deegaanka Aalasha Biyaha si uu maalinkaasi qoyska oo ka kooban 3 caruur ah iyo hooyadiisa si uu ugu soo shaqeeyo balse waxa uu la kulmay wax uusan filanayn xaafadan oo ka soo baxay oo subax ay tahay subaxnimo ay tahay wax ka dhigay amal waa soo kacay shaqo mari shaqadii waxa leedahay meesha maanta shaqo mataal la dhahay injineerka dhowr saac ayaan tuutuuyo wuxuu leeyahay meesha maanta shaqo mataal la dhahay sidii aan ku soo baxay meel kale liiga soo baxay marka meesha kale markii liiga soo baxay oo sii socdo ayaa baaburkii Ex Control anoo joogo ayaa baaburkii kala celinayay oo baabur si kuuleemi sameeyaan si jidka ay u maraan marka aniga baaburkii hadan shaqadii hadan anoo liiga dharrooy nolomaadkiis maalintaas habeen kasta waa qaday wax aan haysto ma laha ma fahmino deena ku noolaay deena liiga qashbadna liiga rawi waalidkaygan aniga wax iga suwaayeen ilmahana ujeedada aniga inaan wax iga suwaay macal qoyskeeya ma fahanti markii ilaas ay tahay hadan maalintii anoo ku fikirayo maxamedo shaqadii waan laga dhado jidkiina waa waxay yahay maxaa sameeyay harqadu aalada lama sheegno dadkii jid loo furay oo kuwan laami sameeyaan ilaas ay tahay jidka baaburkii waa ka dagi laba tilaab makan qaaday qadaxaan la kulmay marka anoo qadax aan la kulmay aan naxtin ku tan anoo hadan ruurtii iyo qoyskii iyo walaalay iyo familkii aan fikiray ayaa hadan qoyskii ayaa hadan qarxiyaan la kulmay naxtin ayaan la qaaday meeshii hadan lugta aan ku istaagay dhibane Axmed ayaa sheegay in markii qaraxa qabsaday uu dhaawacmay uu waayay daryeelkii caafimaad ee uu u baahnaa waxa uu la ooyinayaa sidii loola dhaqmay markii isbitaalka la geeyay jibi walaal waxaan dareemay in hadan dhibaatadaas aan la kulmay cid qaada waasi aan waay nin walba dadkiisu uu orday wala qaadariyo meel iyo waqtiga waxa sameeyay ماذا استمعنا لك أرسلت التوى أليدا أرسلت التوى Abu Cumar Yuusuf Qaasim oo ah aabaha dhalay Axmed Cumar ayaa sheegay markii uu maqlay in wiilkii ay ku tiirsanayd noloshooda uu ku dhaawacmay qaraxii Ex Control inuu mir daboolmay isla markaana uu ka soo lugeeyay beer ku taala duleedka Afgooye telefoon la isoo diray telefoon markii la isoo diray waa khaway telefoonka abaar laba saac ana war waablig way waa war mu way markaan soo baxay alaan qarash ma haysan doon waa soo lugay shilin kun jeebkeem ku jiro waa soo lugay waa soo socdo markaan soo lugay waxaan helay macnaa dad oo meel iska socdo dadkiyaan dhay walaalow aniga duruuftaas as wiilkiya dhaawacmay haddaan isbitaal Madiino amartay as ku sugan yahay duruuf ay haastee bal wax isiyaan intaan ku dhameystiray bawran ku raacay dadkii waxa isiyaan lacag macnaa oo 5 ku shilin isiyaan bawrkiina waxa lagu raacaa 20 kun lagu raacaa kadib hadina macnaa waa la ii wacay intee soo joogtaa war ana waxaan soo joogaan digfee maarta waxaan soo joogaa banaadir soo jooga waa soo lugay ana kharash ma haystay haleen meesha macnaa nin jawax xukumo jabkii badi wax isku jiro ana bagaaji haas maxaa isma biyo shimilka oo kuleel oo meelaha yaalo aan leey macnaa si arrinta kale ee murugada leh oo dhibane Axmed uu inoo sheegay ayaa waxa ka mid ah inuu ku jiray dadkii loo qaadeeyay caafimaad dibadda laakiin faquuq dartiisa loo reebay safarkaasi waa ka mid tahay waxaan ka mid tahay koowaad labaad saddexaad ka mid tahay infaanti anoo been ku sheegay labaad saddexaad qof saddexaad ayaan ka mid tahay waliin bisir magacaaliga qoray waa loo qaadaa la caawad walaana daasi waa loo qaadaa markii ma jajas dhinac maray warninkan uu jabsiiyay haddii baan ay shahaadaan nin isbitaal Madiina ka shaqeeyo oo meesha joogo ay hal saac uu tuutuway warninkan qaada uu qorin yahay ma qaadeen ninkan ma qaadeen uu qorin yahay sibirkiisa xisna waa qaaday maxna walaay ma qaadeen ninkan jajas meesha uu dhinac maray alxamdulillah lugtii way urtay
هذا سيتا هذا تخطيرت وماشي اسكجيفا سيتا هذا وما واي واتحي إن أودو جيدان أحمد يوسف qoys kan ka kooban 3 caruur iyo hooyada dhashay iyo aabihii dhalay oo isaga hormud u ahaa isla markaana uu xooggiisa ugu shaqayn jiray maanta waxay la oonayaan inaysan haysanin wax ay cunaan isla markaana gaadiidkii u shaqaynaya oo ah Axmed oo xoog u ahaa cidana uu luqti ka go'an yahay qaraxii ex control ee afgooyana uu ku waxyeeloway guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid walba wax haysata iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Khayre iyo hay'adaha gargaarka bixiya waxay ka codsadeen ciidan inay soo caawiyaan isla markaana taageero ay u fidiyaan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in kasta wax bixinta Ilaahay iska leeyahay waxaan ka codsanayaa kulay way u jeedaan caruurteeda iyo waalidkeeda u jeedaan aniga way ii jeedaan dhaawaceena u jeedaan iyo meeshan ku noolahay waxaan ka codsanayaa gurmad degdeg ah inay fidiyaan oo nolosheeda maareeyo iyo waalidkay aniga si waxa ugu taliyay waalidkay inay u tiirsiin hadda ma fahantii hadda walaana been ku sheemay meesha hadda aan fadhiyo hashinka cunoon hadda dadka masaakiinta oo macna dadka meelaha degan ala isoo qaqaarumoyn sidii guri aan ku nool wax lagu siino baamno ku shilin had waalidkay jeebkana ku soo bixiyo waa kana ima dhaw waxba ma haastin wax ka keenay farayeen faqiir waxba ma haastan caalamka muslimiinta meel kasta ka joogan wiilkeena waqtiga caalamiinta meel kasta wiilkeena waa qabtaa wiilkeena rugtiisa khaas ahaan caalamiinta meel kasta joogan muslimiinta meel kasta joogan caalamiinta ina ilaahay macnaa wiilkeena qabtaa wiilkeena qabtaa Ismaaciil Aadan Bariise Somali Cable TV magaalada Muqdisho